Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku wada dagaalamay degmooyinka Daynile iyo Wadajir ee gobolka Banaadir. Dagaalka koowaad ayaa ka dhacay xaafadda Seven ee degmada Daynile wuxuuna u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Lama oga ilaa hadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi. Xiriiro kala duwan oo aynu la sameynay saraakiisha ciidamada booliska ee degmada Daynile ayaa ka gaabsaday inay wax faahfaahin ka bixiyaan dagaalkaasi. Dhanka kale, iskahorimaad u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhacay isgoyska korontada ee degmada Wadajir, wuxuuna u dhexeeyay ciidamo boolis iyo militari ah, ka oo ka dhashay isfahanwaas oo kala dhex galay ciidamo boolis ah oo isgoyska korontada ku sugnaa iyo ciidamo kale oo doonaya inay halkaasi xoog ku jiraan. Inta la xaqiijiyay dagaalka degmada Wadajir ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa iyo 2 ruux oo mid ka mid ah uu ahaa dad shacab ah. Weli laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya kama aysan hadlin iskahorimaadkaasi u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ee maanta ka dhacay degmooyinka Daynile iyo Wadajir ee gobolka Banaadir. Mana aha markii ugu horeysay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda ay ku dagaalamaan degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir, waxayna marar badan sidan oo kale iskahorimaad u dhex maray ka oo intiisa badan uu sababo isfahanwaas oo kala dhex gala ama shaki dhanka kale uu ka qaado ciidamada halkaasi ama jagaboontiyada maraya. Wixii ku soo kordhaa halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa.